عالصوم الوليد مرة راحوا عابيت الجيران عالصوم الوليد مرة راحوا عابيت الجيران لعبوا في مدرسة أوغير تهاي لا يهدا waxay ku saleysan tahay madrasadan inay la aasaasay oo la dhisay iskaa wuxuu qabso ka yimid macallimiinta iyo waalidiinta oo macallimiinta ayaa qaybta ugu muhiimsan ka qayb qaatay dhismahan inuu suurta galo marka taas waxay keentay isku tashigoodii awoodii uu keenay inay ka hafto baahidii ka jirtay degmada oo aynan dabooli karin degmada marka waxa jirta baahi dhismo iyo dhaqaalihii wax lagu dhisi lahaa ayaa gaabis naga noqday ilaa hadda intii madrasadan jirtay yaa maalgeliyay madrasadan wax maalgelina meel lama ka heshaan ama dalka gudihiisa ha noqoto sida dowladda oo kale iyo hay'adaha NGO-ga oo kale ama dalka dibadiisa ha noqoto ama shakhsiyaad mutawiciin ha noqdaan wax caawimaad ma heshaan run ahaantii waxaa jira dowrooyin muhiim ah oo dad ehelka ah oo dibadda jiro raasa ka maqan ay noo qabtaan oo ay maalgeliyaan laakiin marka la yiraahdo madrasada gudaheeda ee casharada ka socda ama macallimiintan gudaha dhigta oo kale imika fasalada 9 ka dhigta markii laga reebo qolada masaajidka oo dhismihii hore nagala qayb qaadatay isla jaamica iyo dadka waalidkiihi iyo macallimiinta isku tashigooda iyo iska wax qabsadooda marka laga reebo hadda wax kale oo inta dhaafsiisan oo ilaa ay hadda aan haynay ma jiraan maalgelinay anagunba ilaa ay hadda iska wax qabso ku dhigna macallimiintuna dhamaan mutadawiciin weeyaan oo tadawuba ay ku dhigaan macallinku aroortii uu soo galayaa ilaa 5 iyo barka galabnimo gelinka dambe ayuu ka baxayaa sida uu yahay haddana cid ay xiriir leeyihiin oo xiriir ka leeyihiin noloshiisa ama mushaharkiisa ma jiree waa hawl isaga macallinkii uu doonayo inuu abuuro oo uu naftiirnimo u shaqeynayo oo soo saaro dad ummadda islaamka iyo diinta dadka muslimiinta iyo diinta islaamka waa dad wax ka qabto inuu soo saaro ayuu iskiisa macallinku fikiray macallinka daarul quraanka jiray sida daraadeed ma jiraan wax muxuu ahaa kharij oo ilaa hadda aan haynay xagga fasalada nimika shaqada ka socota wad mahadsantahay Sheekh Maxamed su'aash kala hadaan ku weydiiyo sidaas sheegtay baahi badan ayaa jirta xagga dhismaha dhaqaalaan darteed ardaduna aad bay u badan tahay fasaladuna aad bay u yaryihiin macallimiintuna si iska dadka wax u baraan wax abada meel la kama helaan maxaad codsan lahaydeen dadka mutadawiciinta ama reer raasana muslimiinta waa noqdaan maxaad ka codsan lahaydeen kalmateen run ahaantii baahida badan ee jirta kulley cid kasta oo sawirka naga aragtay waxaan u maleynayaa inay kifaaya ku filan tahay baahida aan dareemaynay marka cid kasta oo ay khusayso arrintan daneynaya waxaan ka codsan lahayn wixii awoodiisa ee inuu nagu taageero haddii ay noqoto dhismihii madrasada haddii ay noqoto qalabaynteeda haddii ay noqoto mushaharka ardada marka dhammaan imkaaniyaadkii aan u baahnay way naga maqan yihiin xitaa waxa ugu yar inay helaan ardaydii iyo macallimiintu musqul markii casharadu socdaan loo baahan yahay ma hayno oo weli muxuu ahaa waan u tabarlaanahay marka halkaas bay baahidanadu maraysaa inaanan xitaa haysanin musqul aanan haysan marka baahidii madrasada dhinacyadeedii ay ku kala socon lahayd way naga wada maqan yihiin xitaa ciyaalkii yaryarka ahaa kuraas iyo miisas aan wax ku barnay iyo goob ku haboon iyo ma hayne dhammaan waxaan is leenahay uun dadaalkiina buu ilaahay iyo ikhlaaskiina buu ilaahay ku taageeri doonaa ama dad muslim ah oo awoodaya ayuu idinka nixin doonaa ayaan islenahay marka baahiyahaas ayaan codsan lahayn loo dhammaystiro dhismaha qalabaynta mushaharka macallimiinta iyo wixii kale la mid ah caynkaas oo dhan ayaan u baahan waxaan ka codsan lahayn cidii barnaamijkan ay khusayso aad baad u mahadsan tahay waan kaga mahadcelinayaa waqtigaad siisay kan waxaa Sheekh Maxamed Deeq oo maamulaha Daarul Qur'aan ee magaalada Raaso Sheekh Maxamed Deeq su'aasheeda ugu dambaysa dadka degmada Raaso ku dhaqan madrasadan bas miyaa wax ka bartaan mise golayaal kale iyo meelo kale oo diinta islaamka gaar ahaan quraanka lagu bartaa jira runtii madrasada magaalada gudaheeda waxaa ka jira madrasooyin badan oo ay dhigtaan
dadka ciyaalka ee daayartii ay dhigtaan ee quraanka ka bartaan way jiraan annaguna ka madrasa ahaan waxaa jira qabaleeyada iyo xitaa degmooyin kale oo degmooyinka jaarka ah waana ku leenahay faracyo caynkan oo kale ah oo laakiin aan heerka soo gaarsiisnayn oo aan awoodan lahayn ayaanu ku leenahay oo ay waxbarashadu ka socoto kuwa kale oo annaga aan farac annagana hoos imanina way jiraan oo degmadii iyo qabaleeyada ka jiro iyagana lagu barto taxfiidka quraanka kariimka mustaqbalka xageed u socotaan mustaqbalka insha Allah sida aan u maleynayo cidii luqadda carabiga garanaysa inay ka dareemayso nashiidada carruurta ay qaadahayeen waxaan doonaynaa inaanu abuurno jiil cusub ama fac ama dac cusub oo runtii muslimiinta iyo diinta islaamkaba ka caalami ahaan wax ka qabata oo wax ka tarta oo weliba waxaanu niyeysanahay sida aanu nahay heerka aanu nahay ee laga yaabay inay sawirkanaga laga dareemay inaanu aad u hooseyno waxaan maskaxda ku haynaa ciziga islaamka inaan sabab u noqono iyo muslimiinta cizigoodii xitaa waqtigan dhulka yaala inaanu soo celino ayaanu ku soconaa insha Allah waanu niyeysanahay annagoo halkaa joogno muuqaalka leh waa niye fiican way ilaahayna ha suurtageliyo aad baad u mahadsantahay Sheekh Maxamed Deeq halkani waa madrasada Daarul Qur'aan aan ku soo booqanay galabta saad u jeedaan barxadan weyn waa barxadda masaajidka jaamaca ee degmada Raaso oo isaga laftiisu qabyo ah saad u jeedaan dhismo ayaa ka socda salafsi qabyo ah madrasadan waxay ku taallaa barxadiisa waxaana ka kooban tahay 9 fasal waxaan wax ka barta arday ka badan 400 arday say ii sheegayna maalin kasta arday aad fara badan ayaa imaan lahayd balse meesha wax ku baran lahayn ayaan loo haynin waxaan la socodsiinay barnaamijka aniga waa Maxamed Mukhtaar Shaafi waxaan ka codsay waxaan indhahay ku arkay inay baahi aad u badan ka jirta meeshan tusaale kooban waxaan ku filay madrasada inta la wadada 400 qof ka badan ay dhiganayaan ma laho meel musqul ah oo ay ku saxaroodaan ama ay ku kaajaan xilliyada ay duruustu socoto waa inay meel fog masaafo u aadaan waxaa kaloo ma jiraan meel biyo ah oo baraag ay biyaha ku shubtaan oo ay ka cabaan iyadana ma laho sadaradeed qof kasta oo muslim ama mustawca oo daawada fiidiyodan waxaan ka codsan lahayn inuu taageero ilaahay dartii ah oo u fidiyo madrasada Daarul Qur'aan ee degmada Raaso. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.